السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنرال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين ما أنت وثلاثة أفريقيا طبعا كبيش الجانوري كوبات سنة كلا بدكون هي شان يلا باتنك وقال كم حربا إن ندي كل وذاقه IRS أو شاعسي وقتها أي بلابان يسحرين عن علينت أما بتكسر تانك هي ترام أو ده هي IRS وحلاقة سو جابي internal review services لكن وحوليه هذا وحن سمينا يا ERS أو external review services ayaan sameynaya arintaasi maxay tahay sidoo kale waan idin la wadaagi doonaa baarlamaankii gobolka Minnesota oo furmay laakiin xubnaha dimuqraadiyiinta aysan House of Representatives ama aqalka wakiilada aysan soo xaadirin iyadoo waliba si qarsoodi ahna loo dhaariyay arintaasi sidee ku dhacday sidoo kale waan idin la wadaagaya qaar kamid ah golaha wasiirada oo Trump soo magacaabay oo maanta ay bilaabeen aqalka sanadka inay dhageystaan qaarkoodna su'aalo kulul la weydiiyay iyo dhowr virus oo kala duwan oo COVID-19 uu kamid yahay oo hadda ilaa iyo 35 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka farabaan ku haya dad fara badan dilay kuwa badanna isbitaal loo dhigay arintaasina maxay tahay maxaa kula gudboon inaad sameyso waan kula wadaagi doonaa balse marka hore aan ku bilaabo IRS xilliga tax season-ka ayaa bilowday xilliga canshuur celinta oo bilaabanayo ama tax return-ka ay IRS ku dhawaaqday waxay sheegtay in 27 bishan January oo aan ku jirno oo maalin isniin ah oo bilaaban doono sidaan ognahayna waqtiga ugu dambeeya tax return aad xareyn karto waa 15 bisha afraad ee Abriil sanadkan 2025 laakiin dadka reer California kuma jiraan maadaama 7 bishan dab xoogan oo ka dilaacay magaalada Los Angeles iyo hareeraheeda in 5 ilaa 15 October ayaa la gaarsiiyay xilliga ay tax return-ka ay xareyn karaan iyadoo sidoo kale aan ognahay in dabkaasi uu dad fara badan saameeyo guryo fara badan oo baabi'iyo dad badan dokumentiyadooda xitaa ay baabeen marka IRS waqtigaasi ayay siisay IRS waxay leedahay haddii aad tax return-ka xareyso 22 maalmood ayaa haddii lacag ay ku soo laabanayso gudaheeda aad ku helaysa marka IRS waxay sidoo kale sheegeen in ay dib u casriyeen ay ku sameeyeen IRS marka waxay sameeyeen wax la yiraahdo direct file waxay tahay qofku in isagu si toos ah website-ka IRS uu uga xareysan karo tax return-ka free file-na waa jira sidoo kale isagana labadaasiba waa jiraan waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen ayay kamid tahay marka 25 kan gobol ee soo socda haddii aad ku nooshahay direct file IRS waad ka xareysan kartaa website-keeda intaad gasho 12 kamid ah sanadkii hore ayaa direct file ay IRS ay ka dhaqan gelisay halka sanadkan 2025 kana 13 gobol ay ka dhaqan gelisay marka 25 kaasi gobol haddii aad ku nooshahay oo aad luqadda fahmayso macnaha xareynta tax return-ku wax fudud maahan qof professional ay u baahan tahay laakiin waxa aad sameynaysaa haddii aad ogtahay oo luqadda si fiican u taqaano macnaheedu waxay tahay si toos ah waad u xareysan kartaa marka sanadkii hore gobolada laga dhaqan geliyay direct file-ka waxa ay kala yihiin Arizona, California, Florida, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New York, South Dakota, Texas, Tennessee, Washington State iyo Wyoming sanadkii hore ayaa laga dhaqan geliyay hadda sanadkan marka 13 gobol ayaa laga dhaqan geliyay waxay kala yihiin Alaska, Connecticut, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania iyo Wisconsin marka Minnesota kuma jirto Ohio kuma jirto laakiin Washington State way ku jirtaa marka direct file waa xareysan kartaa si toos ah website-ka IRS sida halkan idinka muuqato direct file iyo free file ba way jiraan free file-ka waxa macnaheedu ay tahay haddii lacagta aad gross income-ka oo aad xareynayso 84,000 ay tahay amaba ay ka yar tahay macnaha free file-ka waad ku xareysan kartaa laakiin haddii ay ka badan tahay waxaad u baahan tahay tax professional inaad u tagto marka 27 ayay furmaysaa xareynta tax return-ka waxayna ku eg tahay 15 bisha Abriil intaasi gudaheeda waad xareysan kartaa marka Trump ayaa saaka bartiisa True Social waxa uu ku soo qoray inuu sameynayo IRS waa naqaana waxa laga soo gaabiyay internal review services marka wuxuu yiri waxaan sameynayaa external review services waxaana arintaasi ay ku shaqo leedahay hay'adaasi ku shaqo lahaan doonta ayuu yiri in lacagaha taarifka oo alaabaha wadamada ay u soo dhoofiyaan Mareykanka lacagaha laga qaado ayaa waxa uu yiri lagu aruurin doonaa halkaasi wadamada ajnabiga ah lacagta naga soo gasho waxaana sidoo kale uu yiri wadamada ganacsigu nagala dhaxeeyo ayaan gabi ahaanba hay'adaas ay qusaynaysaa marka lacagaha dibadda nooga yimaado ayaa lagu aruurin doonaa ayuu yiri tan waxay qaabilsaneed IRS lacagaha gudaha canshuuraha gudaha marka wuxuu yiri tan oo external review service waxay qaabilsanaan doontaa lacagaha wadamada ganacsiga nagala dhaxeeyo naga soo gasho ay taarifka laga qaado ayaa lagu shubi doonaa ayuu yiri marka wayna arki doonaa arintaasina sida ay u dhaqan galayso
intaas haddaan kaga gudbo IRS-ta Minnesota weli baarlamaankeeda muran iyo khilaaf weyn ayaa ka dhex taagan maanta kalfadhiga ayaa furmay 12 duhurnimo waqtiga Minnesota sida halkan aad ka aragtaan dhinacii xisbiga dimuqraadiga aqalka wakiilada gabi ahaanba waa bannaan tahay hal qof oo kamid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee 66 ahaa ma aysan soo xaadirin 67 Republicaanka oo kaliya ayaa soo xaadirtay waxaana hadda muran uu ka taagan yahay yaa aqlabiyada leh oo hogaaminaya aqalka wakiilada majority-ga dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin power sharing ayaa u baahanaya awood qaybsi maadaama xubin kamid ah dimuqraadiga doorashadiisii maxkamadda ay diiday oo la yiri 6 bilood ka hor ma uusan ku nooleyn halka laga soo doortay Curtis Johnson ayaa la yiraahdaa marka Powell Wickstrom ayuu ka guuleystay Republicana doorashadaas 28 January ay dhacaysaa marka dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin haddii Republicaanku aysan awood qaybsi aysan ogoleen inagu ma imaaneen Republicaanku waxay leeyihiin aqlabiyada hal kursi ayaan ku haynaa waa inay yimaadaan laakiin xeerlaaliyaha guud ee gobolka waxa uu yiri majority-gu waa 68 marka labada xisbi midkood majority ma lahan marka quorumku ma u suuragalayo in ay sii wadaan kalfadhiga aqalka wakiilada Republicaanka sida darteed waxay ku hanjabeen in recall wax la yiraahdo ay ku sameyn doonaan recall waxay tahay in xubnaha dimuqraadiga haddii shaqadooda ay soo xaadiri waayaan macnaha adiga maanta hadaa shaqadaada gambiso oo wax marmarsi aad sheegi wayso waa lagu fire gareynaya Soomaan sidaas oo kale waxay leeyihiin shaqadooda ka soo bixi waayeen marka waa in la fire gareeya processka loo marayo marka in recall lagu sameeyo oo doorashada dib loogu celiyo ayaa waxay tahay in marka hore la helo xildhibaan kasta degmada laga soo doortay in 25 saxiix laga helo dadka degan marka 25 kaasi saxiix la helo waxa loo dirayaa xogayaha guud ee gobolka kadibna maxkamadda sare waa inay ogolaataa in doorashadaasi lagu celiyo marka maxkamadda sare ay ogolaato kadib haddana waxa loo baahnaan doonaa degmo kasta xildhibaan kasta oo ka soo jeeda dadka degan 4 meelood marka loo dhigo meel kamid ah saxiixooda ayaa loo baahnaan doonaa markaas kadib ayaa gudoomiyaha gobolka loo gudbinayaa gudoomiyaha gobolka waa inuu saxiixa markaasi in doorashadaasi lagu celiyo marka waa process dheer oo la marayo Republicaankana waxay leeyihiin processkaas ayaa marayna laakiin waxa la yaab lahayd in xubnaha dimuqraadiyiinta sida sharciga ah maanta oo kale marka kalfadhiga baarlamaanka uu furmo ayaa xubnaha labada aqal la daariya marka dimuqraadiyiintu waxay sameeyeen habeenkii axadda ayaa waxay tageen Minnesota History Center oo backgroundkeeda uu ka muuqdo aqalka State House-ka halkaasi ayaa si qarsoodi ah loogu dhaariyay dhammaanba xubnaha dimuqraadiyiinta marka waxay leeyihiin Republicaanku waxay leeyihiin arrintaas waa sharci darro oo dastuurka ay ku xadgudbeen maanta in la dhaariyo ay ahayd dimuqraadiyiintuna waxay leeyihiin ma ahan anagu uguma horeyna arrintan hore ayay u dhacday waa ay jiri jirtay laakiin si qarsoodiya ay isku dhaariyeen sida sawiradan aad ka aragtaan si qarsoodiya ayaa loo dhaariyay habeennimadii axadda marka murankaasi ayaa weli taagan iyadoo maantana uu shir gudoomin doono xogayaha guud ee gobolka ama xeraalyaha guud ee gobolka uu shir gudoomin doono kalfadhiga laakiin dimuqraadiyiinta ma aysan soo xaadirin waxay leeyihiin doorashadaasi ku celiska ee qaaska 28 bishan dhacaysa ilaa ay ka dhacdo oo la ogaado qofka ku guuleysta Republican ama dimuqraadi inagu soo ma xaadireen kalfadhiga marka waa muddo 2 toddobaad Republicaankuna waxay leeyihiin waa sharci darro shaqadooda ay ka soo bixi waayeen marka waa in recall lagu sameeyo oo doorashadooda gabi ahaanba lagu celiyo arrintaasina halka ay ku dhamaato arki doonaan laakiin sida halkan aad ka aragtaan sanadku maadaama awoodiisa 33 ay tahay dhamaantood waa ay soo xaadireen waa ay joogaan sida halkan idin ka muuqata laakiin aqalka wakiilada dhinaca dimuqraadiyiinta gabi ahaanba waa bannaan yahay oo Republicaankii oo kaliya ayaa soo xaadiray kalfadhiga aqalka wakiilada intaas haddaan ka gudbo muranka ka taagan aqalka wakiilada ee Minnesota aqalka sanadka ayaa maanta waxa ay bilaabeen dhageysiga qaar kamid ah golaha wasiirada oo Trump uu soo magacaabay oo doonayaan inay ansixiyaan xubnaha maanta ay aqalka sanadku ay su'aalo weydiin doonaan labada xisbi ee dimuqraadiyiinta ee Republicaanka waxay kala yihiin Marco Rubio oo Trump uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Pam Bondi oo uu magacaabay wasiirka cadaaladda Kristen Noem oo uu magacaabay wasiirka amniga gudaha iyo Pete Hegseth oo uu magacaabay wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth ayaan arkayo su'aalo kulul oo ku aadan arrimaha faraxumeynta haweenka oo lagu soo eedeeyay isagoo xaasla in haween kale ilmo uu ka dhalay iyo inuu qamriga si aad uga cabi jiray waxyaabahaasi ayaa su'aalo kulul laga weydiinayay hadda aqlabiyada aqalka sanadka 53 xubnood waxa ku haya Republicaanka dimuqraadiyiintuna 47 marka xubin kasta oo kamid ah golaha wasiirada waxa ay u baahnaan doonaan Republicaanku 51 xubnood in ay ku ansixiyaan marka saddex kamid ah Republicaanku haddii wasiirkaasi diidaan oo ay ka soo horjeestaan wasiirkaasi lama ansixin waayo marka haddii laakiin laba ay diidaan maadaama 53 ay leeyihiin oo 51 helo waa ansax oo wasiirkaasi waa la ansixiyay waxana ay noqon doonaan maalmaha soo socda ilaa iyo toddobaadkan arbacada oo beri khamiista ilaa iyo jimcaha in ay
wasiirada kala duwan ay hor imaan doonaan oo labada dhinacba su'aalo ay weydiin doonaan marka waxaa la yiraahdaa confirmation hearing la yiraahdaa oo ah in xubintaas waxyaabihii uu soo maray hadaladiisi waxyaabahaas oo dhan su'aalo laga weydiiyo dhinaca kale hay'adda CDC da xakamaysa cudurrada faafa iyo waliba dhaqaatiirtu waxay ka digayaan 4 virus oo kala duwan oo hadda wadanka farabaan ku haya waxay yihiin norovirus RSV COVID-19 oo inuu tagay loo maleeyay laakiin wali waa jooga iyo sidoo kale seasonal flu hergebkan sanad kasta amaba durayga sanad kasta yimaada waxaa dhinaca hadda la arkaya dhinaca durayga in 18% uu sii kordhayo 9.1 milyan oo qof ay la xanuunsadeen 110,000 oo qof isbitaal la dhigay waxaana la leeyahay dad 4,700 ayaa bishan January oo kaliya hergebka u geeriyooday marka talaalka qofku hadii uu doonayo waa uu qaadan karaa sidoo kalena waxaa jira in qofku hadii uu xanuunsan yahay guriga inuu joogo ayaa lagu talinayaa qofku hadii uu qufacayo sidii coronavirus-kii inuu afkiisa daboolo gacmihiisa inuu dhaqo caruurta waxa la leeyahay waa in laga ilaaliyaa in caruur kale inta badan ay la ciyaaraan kuwa guriga isla joogana cuntada aysan isla cunin gacmahana laga dhaqo marka ay cuntada cunayaan dhaqaatiirtu waxay leeyihiin hadda anaga nafsad ahaanteena mask ayaan xiranaynaa maadaama dad xanuunsan aan la tacaalayno isbitaalada dhinaca ERT emergency-gana dadka tagaya aad ayay u soo kordhayaan marka hadda waxaa lagula talinayaa dadka qaarkood maadaama 40 virus ilaa iyo 35 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka hadda laga helay qofku hadii uu mask qaadan karo in uu qaato waana fayrasadan kala duwan oo COVID-kii flu-ga RSV-ga iyo waliba norovirus-ka afartaasi virus been hadda wadanka ay farabaan ku hayaan ay hay'adda CDC da iyo waliba dhaqaatiirtu ay sheegayaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo